kusoo dhawaada daawadayaal Taageera TV iyo barnaamijka codka taageerayaasha. barnaamijkan oo aynu kaga hadalno horyaalka qaaradaha Yurub iyo liigaga ugu waaweyn qaaradda Yurub sida La Liga, Premier League iyo Serie A. toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa laba qodob oo kala ah ciyaartii weyneed ee El Clasico ee dhex martay kooxaha Real Madrid iyo Barcelona iyo qodobka labaad oo ah horyaalka qaaradaha Yurub oo meel xasaasi ah maraya dhamaadkii sida caadada ahayd waxa barnaamijkan igu marti ah كابتن عبد الشافي ومديك تيدا فرديا وحا كوحيغا كابتن بصودي iyo كابتن محيدين kusoo dhawaada barnaamijka waxaan ku horeyn doonaa daawadayaal كلاسيكada kulankii كلاسيكada kulanka waxaan kusoo dhaweynayaa Cabdiraxmaan oo midig teeda fadhiya dabcan Cabdiraxmaan iyo Cabdibaasti Muxiidiin mar ayagoo ka dhiman doonaan waxaan ku horeynayaa Cabdiraxmaan saad u aragtaa kulanka El Clasico ee dhexmaray kooxaha Real Madrid guusha ku raacday labada gool iyo hal wad mahadsantahay Yunis aan ku salaamay adiga dhamaan walaalaha طبعا ciyaartaas waxay ciyaar qaaliya waxay ciyaaray iskaga hor yimaadeen laba kooxood kamid ah kooxaha adduunka la gareeyay ama hogaaminaya xagga kubadda cagta oo Barcelona iyo Real Madrid ciyaartaas waxa la martigeliyay oo garoonkeeda marti lagu ahaa kooxda Real Madrid ee ku ciyaartay garoonkeeda Alvaro Di Stefano waxay ciyaar masiirkeeda iyo moogtahay culeyskeeda leh labada kooxood waa laba kooxood oo xafiiltan iyo tartan weyn oo ka dhaxeeyo inta waxa dheereed in sanadkan labada kooxood qab ciyaareedka ku bilaabmeen iyo sida ay ku jawaaga ay ku jireen waxa mid hooseeya ciyaartan waxay fasl ama ay kala saaraysay labada kooxood kulba kii u dhawaanay hanashada koobka shakhsiyan waxaan arkaa ciyaartaas waxay ciyaar qurux badan labada kooxood waxay soo bandhigeen ciyaar talentigeedu u sareeyo طبعا markaynu eegno ciyaarta qaabka ay ku bilaabantay haafkii hore kooxda Real Madrid waxay u muuqatay koox soo diyaar garowday ciyaartan waxay ciyaaray macalinka Real Madrid sanadii Zidane technical counter attack inuu ciyaaro isagoo markaas ka faa'iideysanayay saddex difaac kooxda Barcelona oo gaabis uu ka muuqday wax moodisay guud ahaan marka shaxda la qiimeeyay inuu darsay shaxda iyo squadka Barcelona iyo qaab ciyaareedkooda waxa la oran karaa marka dadka analysts ama ciyaaraha taxliiliya ay eegaan dars ayuu u dhigay taktiga Koeman haafkii hore waayo wuxuu sameeyay wax badan oo aan laga filanaynin طبعا kooxda Real Madrid waxa haystaa squad aad moodo in uu yahay squad standard oo saddex nin dhexda uga ciyaara Real Madrid Toni Kroos Luka Modric iyo Casemiro waa niman isla qabsaday laakiin guud ahaan marka la eego ciyaarta iyo haafkii dambe sida kooxda Barcelona ku bilaabantay lafteedu wax lagu amaani karo kooxda Barcelona waxay sameysay ciyaar fiican oo u qalantay haafkii dambe waxay isku dayeen maxaawalaad bay sameeyeen Koeman waxa moodaa in khaladaadkii haafka hore uu galay وهافكي دمبو وصوصح وقدار وكصوصحي طبعا جوش واحد راعي كوحدة ريال مدريد أو أنا أقول كرو طبعا ويقل ميصير جوش الرعضة وهايو لكل مجتهدين نصيب أي مهما عربية هذا وحنسوق لو أنك كوحدة برشلونة ويد ذا شيء نحن قبا عيارته ما كلا صارت دونتو أو ما نقول دونتو عيارته فصل يقصنا ميسا أما مسير كلي جسوق بجميسا labada kooxood Janis bay haystaan xalay tolo kooxda Atlantic Madrid bal barbareeyay oo bi kooxda Real Betis ay la gashay caawa waxa ciyaari doonta Ishbilia oo iyaduna hadii ay badiso 60 points bay yeelanaysaa liiga marka waxay noqonaysaa in la isku soo dhawaado 1 points bay afarta kooxood u sareeya ay kala sareyn doona ama 2 points wax u dhaxeeya marka taas macnaheedu waxay tahay hadda waxa haray at least ila 6 game 8 games ba haray that means masiirkii liiga iyo liiga in la saadaaliyo kooxda ku guuleysanaysa way adag tahay sanadkan waxaan rajaynayaa inuu noqon doono sanadii ugu adkay liiga Isbaanishka tartanka lagu tartamo aad baan idin salaamaya dhamaantiin asxaabta ciyaartii Clasico-da habeenkii Sabtida dhacday waxay ahayd ciyaar aad u soo jiidatay indhaha caalamka oo dhan waxay ahayd ciyaar aad loo wada sugayay sidoo Captain Shafi sheegay waxay ahayd ciyaar labada kooxood ay ka imaadeen meel fog ka imaadeen oo ay soo gaareen xilladii ugu dambeysay liiga in ay rajo ka yeeshaan in ay liiga ku hantaan labadooda mid kamid waxay ahayd kooda badiya mid la saadaalin doono in iyadoo ay 8 ciyaarood harsan tahay liiga in uu haddana kooda ku dhawaan kariyo liiga Ishbilia laftigeedu iyadu ma foga sida Captain Shafi sheegay Real Madrid habeenka Clasico-da anigu waxaan oran karayaa sidoo Captain Shafi sheegay Zidane iyo waxa wada ciyaariyay Barcelona waxaan uga jeedaa sida Zidane haafkii hore wuxuu soo bandhigay ciyaar aad u qurux badan haday noqoto counter attack haday noqoto long passes ciyaarta la yiraahdo oo uu taktiiga u isticmaalay ay tahay long pass ka waxa u dheeraa
difaaca Barcelona sidoo kabta Xavi sheegay ay ahaayeen qaar aad u ritmkoodu u hooseeyo amba surcadoodu aad u hooseyso uu kaga faa'iideynayay long passes iyo rhythm sariic ah inuu ku ciyaaro taas waxa u suurtagelisay inuu halfkii horeba laba iyo wax ka badan baa u dhalin karayay Zidane wuxuu la ciyaaray 12 ciyaarood ee Barcelona intii uu hayay xilka waxaan oran karaya uu ku takhasusay in uu gacan iskaga qabto Barcelona 12 ciyaarood uu la ciyaaray 6 ciyaarood uu ka badiyay saddexna uu la baraajiyay laba kaliya ay ka badiyay waxaan oran karayaa 9 ciyaarood ayuu dhibcaha la qaybsaday marna uu ka qaaday taas waxay keenaysaa kelmadii ahayd in uu si fiican u diraasiyay squadka Barcelona ay habeenka ku soo galayso ogow squadku ku soo galay Barcelona uu ku soo galay Zidane habeenkii ugu dambeysay ee classicada waxa ahayd nafsal classic tu ku soo galay Liverpool oo kaliya laga bedelo Filfardi taas waxay sababaysaa in uu tusayso in uu shaxda uu hayo Zidane in ahayd shax xilliga ku munaasib ahayd mid la ciyaarta Barcelona uu kaga faa'iideynayay rhythmka surcada ah ay hayso laacibiintiisu hayso waxaan oran karayaa ninka aadka loo filayay markii uu Cristiano Ronaldo ka wareegay Barcelona Real Madrid Messi oo la islaha aad ayuu wacdaro u dhigi doonaa waayo toddobadii classic ugu dambeysay goolna muu sameeynin goolna muu dhalin sidii uu Cristiano ugu tagayba waxaan oran karayaa halfkii dambe Barcelona way dadaashay waxay sameysay dadaal aad u fiican oo waxay isku dayday inay nala baraajayso laakiin Zidane mar labaad wuxuu tusay marin inuu yahay amba inuu yahay flexible inuu yahay dhinaca squadka oo markiiba uu hadana shaxdii sida ku bedelay aad baad maasantay Yunus walaal Yunus waad maasantahay asxaabta iyo taageerayaashana daawanaya aad baan iyaguna salaamaya runtii ciyaartan classico ee u dhaxaysay Barcelona iyo Real Madrid waa ciyaar runtii caan oo adduunka dhan laga yaqaano oo inta badan ciyaaraha ugu qaalisan ee marka laga ciyaaro kubadda cagta ciyaartii habeenkii loo dhacday runtii ciyaar aad u xiiso badan bay ahayd ciyaar xamaasad wadatay bay ahayd inkastoo dhanka tactical lagu kala duwanaa waxaad moodaysaa afkii hore inay ku yara janjeeday Barcelona sababtuna waxaan oran karaa waxoogaa shaxda ayaa qalad yar kaga jiray Real Madrid oo saddex nin oo inta badan kubadaha tuura ay dhexda uga ciyaarayeen ayuu tababara Barcelona ku soo galay saddex difaac oo iyaguna iska marka khibradooda aad u yartahay oo malaha naadiga kuba cusubay marka waxa oran karaa horta qaladka halkaas ku yimiday inkastoo loo kala Koeman halfkii dambe uu saxay oo waxaad moodaa inuu kooxda yara dheeli tiray waana sababta marka dambe ay Barcelona ay u lahayd gacanta sare kubad aad u fiican oo ciyaarta halfkii dambe wali waxaan oran karaa seasonka wali ma arag ciyaar halfka dambe ciyaartay ma ciyaarin inta seasonka lagu jiray kubad aad u qurux badan oo weerar u badan ay ciyaartay marka waxaan oran karaa horta Real way badisay dhibcihiina qaadatay liiguna meel wax maraya aad u xamaasad badan oo kulli aad loo kala sareeyo saadaasha sanadkan liiguna kulli aad baad tahay oo saddexda kooxood Barcelona Real iyo Atlantico kulli waxa la ogaan doonaa dhamaadka liiga marka waxaan ku soo koobay horta ciyaartaas ciyaar aad u xiiso badan bay ahayd labada kooxoodna midba half bay lahayd halfkii hore inkastoo ay gool badan Real dhalisatay halfkii dambena waxa lahayd gacanta sare waxa lahayd Barcelona bal saaxiibka Yunus dib aan ugu celiyay su'aashan bal adigu nooga faalo ciyaartu habka u dhacday iyo sidii bal ciyaartaas hay'ad bal xogaa faalo naga siiyo Yunus way mahadsanyihiin dhammaantiin asxaabtu Muxidiin iyo Cabdibaasid iyo Cabdishaafiba runtii say sheegeen dad asxaabtu waxba kama tagin si fiican bay u falanqeeyeen ciyaartu ciyaar aad u xamaasad badan la ahayd ciyaar waxay ahayd labada kooxood ay muujiyeen awoodooda inkastoo aan oran karo marka la barbar dhigay sanadadii hore levelka iyo mustawaha ay taagan yihiin aad buu uga hooseeyaa waayo haddii kooxda sida Atletico Madrid aanu itaal badnayn anigoo ixtiraam weyn u haya Simeone iyo kooxdiisa laakiin marka la eego Atletico iyo qaabkii championka uga hadhay iyo qaabkii u ciyaarto de ma aha koox u qalantay inay hayso dhowr iyo 20 wareeg hogaanka horyaalka Isbaanishka laakiin Real Madrid iyo Barcelona dhaska iska soo yara tumeen ciyaartan classicadana waxay xamaasada cirka ay u sii sharartay horyaalka Isbaanishka bal waynu eegi doonaa halka ay ku dambayso laakiin way adag tahay in la saadaaliyo halka ay ku dambayn doonto horyaalka Isbaanishka ciyaarta classicada wuu la hadalhaynaa waxa jirtay dhacdo aad muran weyn u dhalisay oo ah dhacdadii penalty ama recordihii
laga diiday kooxda Barcelona daqiiqadii 9aad Ferland Mendy oo baasha bidix uga ciyaara kooxda Real Madrid ayaa waxa uu dhulka dhigay Braithwaite oo weerarka uga ciyaara Barcelona bedel ciyaarta ku soo galay arintaas oo dhalisay muran weyn waxa aad ay arintaasi saxaafadda Isbaanishka ilaa imika la hadlay 2 cisho ciyaarta ka soo wareegay aad baa loo hadlayaa bal falanqeeyaasha la joogay asxaabta la joogta ayaan dib ugu celinaya dhammaan ra'yiga bal say u arkaan waa taa laqdadu hoosta ku xusantahay saad ka arkaysaan videoga marka Cabdiraxmaan ku soo dhawaanay Cabdiraxmaan adigu ma waxay kula ahayd dhacaas ma record kula ahayd mise kulama ahayn ra'yigaaga يونس هو ولا لون ما تنتهي مر لما ولا لون ما تيهين طبعا بوينت جا مر لقطة هدي ندول استاجنه أنا شخصيا وحنا أركا إني هيدا الركورة أنا إيجي شروع ذاك بدعكته أنت عنك أكسوني هاي أنا إيجي طبعا عيرت واحد عير فيناله سولا حكم كهي حكم إسباني بوها نند اللي يرى أنت سوينين بوها مقعيس وحلا جيل منصانه وحكمية حكامته وقف عن الاتحاد الإسباني أما مامل الإسبانيش كسولياشا طبعا كاسي جودهان ما هننو في عن عياره هرو قابل برشلونة وحو قابل إلا إنك بدن أفري لو وطن عيارات أو أي هرو قبت عيار كوحان برشلونة عياره هذا واحد يقول استكوبي تبع عياره كلية قلدردي حالي واحد نقول قلدردي اللي حدا يقول دريستو أنت عياره هذا وقبتي حكم كجيل منصانه wuxuu taariikhda xusin yahay inuu ahaa mid kamid ah suulayaasha ugu badnaa ciyaartoyda Barcelona casaanka siiyay sida Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar da Silva dhamaantood ciyaartoydaas oo dhan Sergio Busquets, Lenglet dhamaan ciyaartoydaas oo dhan 3 sano u dambeysay uu kaliya casaan u wada siiyay Gil Manzano طبعا hadii aan point gari kooraha ku soo noqdo xakamkii anigoo eegaya ciyaartii capacity iyo awoodda ciyaartaas lahayd ciyaar final markay noqonaysa Barcelona iyo Real Madrid anigoo eegaya roobkii iyo cadam ruyadii sidulaha iyo sida aan laqadadu aan ugu muuqanin sidulaha anigoo eegaya kubadii iyo qaabka uu maskiga iyo qabsida uu sameeyay Mendy oo Braithwaite ugu sameeyay waxay u muuqatay penalty cadana dhamaan analysts adduunka dhan way isku raaceen sidoo kale waxa cajiib Yoniso حكمك حبها كتوسيستين حكم كاس حكم أن سحة عدالة أن فير عن عيارتو سجال عيارتو كمدة عيارتو برشلونة أي حكم كوحك عصدين إنه 1 minute فارتو سيجو تسمعني ده واحد كتوسيستا حكم كاس إن ضاعت كان عيارته شدوا كله واحد عجيبة حكم كاس 2 minute بروح كوخ ساري إن ميكروفون وكهلا وكل حين رئيس ولا شكله ووقت كل مين ما دام وكح ماضي هذا عيارته حقوق تري 4 minutes كلية كان وحنا أركاز حكم كاس يبرلت كاسين صحة حكم كاسين وحق لي عيارته يونس هو محسن صاحب لقد دعضي أم دعضة كدعضي كلاسيك هذا واحد دعضو آد عالم كله نقشي كي هذا أنا كهلا سيدا قف تاجير يوكل ريال مدريد أم بان كأجو دين علوجا كبدة waxaan oran karayaa ma ahayn penalty iyadoo analysis far badan ay ka hadleen marka loo eego Real Madrid iyo Barcelona wada ciyaariyo wad garanaysaa Barcelona laacibiinteedu wad iska garanaysaa in ay markasta ay ku fiican yihiin waxa la yiraahdo actingka taa markan ka imaado ninka la yiraahdo Jamal Sharif ama ninka u qaabilsan BN Sport laqdada aad buu uga hadlay hadii aad dib u fiirsan doontaan insha Allah ninkaas aad buu uga hadlay waxyaalo badan oo soo bandhigay waxaan anigu kaga baxayaa waxa weeyaan in aanay laqdadaasi ahayn amba dhacdadaasi aan ahayn penalty okay kabtooyeen soo walaaleen laqdadan cajiibka ah ee ka dhacday Barcelona iyo Real u dhaxaysay runtii waxay ahaydeen saay teamku sheegeen laqda aad looga sheekeeyay laakiin aanu muxiidinaan waxaan arkaa in ahayd matqana record oo ahayd penalty sababtu waxa weey mata dafca jirtay oo sideen wada arkayno mata ciyaartooyga isagoo ciyaartooyga dhaafay oo xaqii ku bedana ka xiga ayuu qacanta soo qabsaday marka kulay macna sameynayso ciyaartooyga inuu marka hadhow ama matqana isturitaanka ku sii daro laakiin mid waxa weey matqana dafca ma jirtaa hadii marka waxa weey ciyaartooyga la qabsado la soo riixay taas ma kulay cadeyn noqonaysa sidoo kale sidoo Captain Shafi sheegayna Robina wada iyo kulay xakamka laftigiisu toos ma arkayn marka waxa at least inuu faarta soo yaga bahayd maadaama aanu caadi u arkayn oo soo sheegayo Shafi taxta ciyaartooy badan baa u tagay oo ku yiri dadan de arkayn de noo soo eeg
marka kulley marka taariikhda coachkan eegtana kulley waxaad moodaa inuu Barcelona ku yara waxaan sheegay suuradaha sorry waxaad moodaa inuu Barcelona ku yara cadaadiyo waayo inta badan kaarka casna waxaan arkay isagoo dhowr jeer ciyaartooyda siinaya Barcelona marka adwaan way dad badan way ka hadleen laakiin Real kulley iyagu waxay taagan yihiin ma hayneen record ma hayn marka kulley day oo matqan war ku ixtiraamna reegooda marka aan waxaan qabaa inay hayd record bal marka saaxiibka Yunus isagna bal dib aan ku celiyo Yunus oo koran bal sad aragta labada way mahadsanyihiin dhammaan asxaabtu si fiican bay uga hadleen Cabdiraxmaan oo kale wuxuu ka hadlay statiskii ciyaarta xakamkeedii Cabdibaasit wuxuu soo qaatay in Jamal Sharif uu u qaatay uu ansixiyay inaan penalty ahayn Muxidiin oo kale soo qudhisu si fiican buu uga hadlayo ra'yigiisana ka dhigtay hadana aanu ra'yiga horta inagu ma nihin sidoodayaal ma nihin waxa weey dad baa ku shuqul leh oo waxa weey ay shaqadooda tahay kubadda cagtana waxa la yiraahdaa waa game of opinions ama لعبة الآراء أما ما قرنيسا يعني وحوي لعبتي أما عيارتي الرأي ذا كلا قديسا مركا قف بدأ لنا عن قلبه كيستاجي ما قرنيسا أنا أقول رأيي واحد يعني هيد دعداسي بنالتي واضحة وحشة كذا أذكر والله يبقى لنا واحد إنه حكمكو بريجو هلا إن الأمور بشرية وحصل من واحد لوجيكال لكن واحد لا يبلا إنه مرينا سنة كلا بدو كن كوبلا تنكا أو VAR أما VAR ay ka shaqeysa caalamka oo dhan liigaga u waaweyn haddana inuu xakamku diido inuu ku noqdo farta yani cid kasto hadad farta ku noqon lahaa bila hadal buu penalty ku dhigi lahaa laakiin haddana de fi nihaya kubadda cagtan soo sheegay waa waxa weey game of opinions marka waa la kala wada doonaan karaa marka halkaas aynu kaga baxnaa qodobka classic-da daawadayaal waan ku yar raagnay waxaan u gudbin doonaa xubinteena labaad oo aan si kooban uga hadli doono horyaalka qaaradaha Yurub ee Champions League oo maraya meel xasaasiya wuxuu marayaa sideed dhamaadkii wiiga waxa dhacay toddobaadyo kulamo aad u xiiso badan kooxaha Real Madrid iyo Liverpool baa afka istaray 3 gool iyo hal ayaa ciyaartaas ku dhamaatay ciyaaryahanka Jarmalka ah ee Toni Kroos ayaa wacda ciyaarta ka dhigay Vinicius Junior Chelsea iyo Porto Chelsea baa ku soo badisay 2 gool iyo eber Dortmund iyo City baa daqiiqadii dambeysay Phil Foden wiilkeeda Ingiriiska ah ee uu kaga fujiyay daqiiqadii 9 gool iyo hal ciyaartii afaraadna waxay dhex martay ee ugu xamaasada badneed la oran karo waa ciyaartii dhex martay PSG iyo Bayern Munich garoonka Allianz Arena ee magaalada Munich ee wadanka Jarmalka waxaan si kooban soo qodob uga hadli doonaa aan ku soo dhaweyn doonaa sida aanu filayno cid ugu gudbi doonto afarta kooxood iyo ciyaaraha reactionka ciyaaraha dhacay si kooban khaasatan ciyaarta PSG iyo Bayern iyo Real Madrid iyo Liverpool waxaan ku soo dhaweynayaa Cabdiraxmaan oo midigteeda fadhiya ciyaarta Cabdiraxmaan Liverpool seedo aragta iyo Real Madrid iyo ciyaartii kale PSG iyo Bayern midda kale maxiyad falaysa in ay isugu soo hadhi doonaan afarta kooxood Champions League Yunus waad mahadsan tahay طبعا UEFA Champions League waa koob qaaliya oo kamida koobka ugu qaalisan Euro laga ciyaaro haddana wuxuu marayaa sidaad sheegtay meel xasaasiya anoo haddaan dul istaago si kooban ciyaarta dhex mari doonta labada kooxood ee lugta labaad Real Madrid iyo Liverpool طبعا ciyaartu waxa kusoo dhamaatay 3-1 waxaa lagu ciyaariyay garoonka kooxda Real Madrid ee Alvaro Di Stefano ciyaartaas Real Madrid waxay soo bandhigtay ciyaar qaabkeeda iyo standardkeedu aad u sareeyo laakiin the champion ku xal malaya ma haya Yunus kooxaha Ingiriiskana waliba khaasatan markii garoomadooda ku ciyaarayaan waa kooxo juhdi badan iyo dadaal badan sameeya kambagoodana aad ugu fiican Liverpool waa koox champion marka anigu ilaa hadda waxaan ku taaganahay sidii markii hore baan saadaaliyay Real Madrid ay bixi doonto laakiin waxaan filayaa oo aan rajeynayaa in Real Madrid mucaanad iyo dib ay kala kulmi doonto garoonka Liverpool Anfield Stadium sidoo kale hadii aan iyadana dul istaago ciyaarta ay ku dhex mari doonta wareegga labaad ee Stade de France Paris Saint-Germain iyo kooxda Bayern Munich طبعا ciyaartaas waxay ciyaartii ugu xamaasad badnayd ama quality-geeda standardkeeda ugu sareeyay intii kooxda imka ay wada ciyaaray طبعا kooxda Bayern Munich waa koox technical iyo weerarkeeda iyo qaab ciyaareedkoodu aad u dhisan yahay wali aad moodo in guud ahaan natiijteeda iyo guulaheedu sanadkan aan sidii hore u fiicnayn kooxda Paris Saint-Germain waa koox dhaqaale badan la geliyay sanadkii hore final bay tagtay waa labadii kooxood sanadkii hore finalkiisa ugu yimi waa laba kooxood oo ficilta badan hadda waqtigan xadarka uu ka dhaxayo laakiin anoo eegaya natiijadii ciyaarta hore ay ku soo dhamaatay oo 3-2 ahayd oo taas macnaheedu ay ka dhigan tahay inay natiijadaas ay garab siinayso ama natiijada ay u sii dhaweynayso kooxda Paris Saint-Germain laakiin anigu anoo eegaya khibradda
naftayda ciyaaraha intii aan daawanayay anuu eegaya kooxaha Jarmalka iyo sida aanay u niyad jabin waxaan ilaa hadda aaminsanahay kooxda Bayern Munich inay noqon doonto kooxda u soo gudbi doonta wareegga semifinalka guud ahaanna saadaalin haddii aan saadaaliyo oo dabcan iyagana waxaa jira afar kooxood oo iyaguna barbar socdo ah kooxaha Man City, Dortmund iyo Chelsea, Porto anigu Yoniso shakhsiyan walaalahan waxaan hore ugu sheegay waxaan ahay dadka fikrahan aaminsan in semifinalka isugu iman doonaan kooxaha Real Madrid, Bayern Munich, Man City iyo haddii la haydamkeeda leeyahay Chelsea afarta kooxood baan ugu rajeynaya semifinalka isugu soo bixi doonaan saaxiib Yonis waxa weeyaan sida Cabdiraxmaan sheegay Cabdiraxmaan baa soo dhameeyay waxaa la soo dhaafay week aad u xiiso badnaa ciyaaraha aad u xiiso leh la soo ciyaaray haday noqoto Liverpool iyo Real Madrid iyo haday noqoto Paris Saint-Germain iyo Bayern Munich Porto iyo Chelsea iyadu waxay ahayd ciyaar waxaan filayaa garabka ay yaro xoog weyneed Chelsea oo sida ka cadid 2-0 ay ku soo badisay Real Madrid sida Cabdiraxmaan sheegay waxay la kulmi doontaa معاناة أما واحد لكل مدونتها وحكور إيمان دونا صعوبات بكور إيمان دونا مركي تكتو أنفيل وريو ليفربول وذكرنا سل أنفيل يشوكتا وحي سامين كريسو لكن هذا نوحن هو بعنقو إن ليفربول ريال مدريد يو تشيلسي سكوغو إيمانيان وريك سو صعدة سيمي فاينال كا باريس سان جيرمان بايرن ميونخ waxaan filayaa anigu amba aan ilaa hadda ku taaganahay waxa weeyaan in PSG ay soo baxayso anagoo eegayna waxa horteena yaala oo ah in ay soo badisay Paris Saint-Germain ciyaartii hore oo gurigii Bayern Munich ay ku soo badisay ma filayo sida imka akhbaartu sheegayso inuu Lewandowski uu soo kacayo laakiin hadii uu soo kaco iyo ciyaarta sida uu ciyaarsi Bayern Munich waa ciyaar aad u adag bay soo bandhigtay laakiin hadana markii PSG ay soo gaadho meelahan amba ay timaado ay joogto garoonkeedii Pochettino macallin aad aan loo ilaawi karin weeyaan waa macallinkii anigu aan hubo inuu Barcelona uu ka badiyay Barcelona kamay badinin ma ho marka laga yimaado faniyaadka ay soo gudbiyeen laacibiintu laakiin Pochettino waa laacib waa macallinkii ka badiyay Barcelona waxaan hubaa in ay Paris Saint-Germain iyo isku soo bixi doonaan Dortmund Manchester City sida markii hore aan qabay inay Dortmund soo baxayso ila ma aha laakiin marka waxaan filayaa inay City iyo PSG isku soo bixi doonaan semi-finalka صاحب يورسو ساتي مشجعي Champions League كله وكوكو قالسنا laga dhigo qaaradda Yurub imikana meel aad u fiican buu maraya oo aad u xamaasad badan week u dambeeyay ciyaaro waxa dhacay muhiim ah oo ugu horeyso ciyaartii PSG oo dhaxaysay Bayern runtii ciyaar waxay aad u qurux badan ciyaar waxay aad mooday inay labada kooxood isku dheelitirnaayeen kulli wareega dambana iyo anu saan qabo ciyaartaas inay saadaal lahayn baan qaba oo labada kooxood baan suran karo mid walba bixi kartaa ciyaarta kale Liverpool iyo dhaxaysay Real Madrid ciyaar iyadoo waxay aad u kulul oo aan waxba la isku harin inkastoo ay awood sare lahaydeen kooxda Real Madrid haddana waxa ay garoonka Liverpool oo inta badan taariikhiin Liverpool waxay ku caantay marka garoonkeeda joogto inay awood aad u badan leedahay si marka uu waxaad moodaa imka saadaasha badankooda ay sheegayso waxay u dhawaan inay soo baxayso Real Madrid maadaama ay gool badan ku soo badisay ciyaarta kale iyaduna Man City iyo Dortmund iyaduna waxay u dhawdahay maadaama ay City ku soo badisay away imikana ay garoonkeedii tagayso kulli iyaduna waxa Itihad sorry maalinka hore City macna maadaama ay City ay soo badisay runtii waxaad moodaa inay halkaas City iyadu ay soo baxsay iyaduna marka afarta kooxood aan saadalnay isku soo waxa weey kooxda Man City iyo Chelsea iyo Real iyo ciyaartan Paris iyo Bayern Munich aan oran karin kooxdaas soo bixi karta balse labaduba ay isku yara fursad leeyihiin marka balyoosna weydiin isaguna sidoo arko say kooxaha soo bixi doona iyo bal soo noqon doona rubuc dhamaad way maatay dhamaanti asxaabtu si fiican bay u falanqeeyeen haddii ra'yiga shakhsiga ka dhiibto afarta ciyaarood ee dhacay toddobaadkan طبعا ciyaarta ugu weyn waxa Real Madrid Liverpool runtii Real Madrid iyo macalinkeeda Zinedine Zidane wuxuu soo bandhigay ciyaar aad iyo aad u qaaliya oo runtii aad u wanaagsan xagga taktiik ahaan waxaan filayaa Real Madrid Anfield marka lagu noqdo kulli waxa la kulmi doona
كل سيدا شيئا أصحابته سي إيزي كم صاب بحيطانه ليفربول ولا لندن تا لكن هذا ريال مدريد يظن ولا لندن تا مركز ريال مدريد ويصاب حسابنا مثلا كلن ككلا بي اس جي بايرن مونخ وأصحابته آد وهذا لين كلن وحوها رنتي آد وأدق وريجا كودا كدعي أليانز أرينا بايرن مونخ إنكستو وكم قية هي روبرت ليفاندوفسكي حطنا وكوح كو iska celin karta oo shooba mateen ciyaar aad wanaagsan buu soo bandhigay bedelka hadii uu ahaan lahaa hadii imika Lewandowski joog lahaa waxaan oran lahaa Bayern Munich bila hadal bay ku baxsan tahay laakiin maadaama oo miciyihi ay ku dagaalamaysay aan oran karno inuu yahay Robert Lewandowski waa ciyaartaasi waxay u dhowdahay saa muxiitin sheegay 50-50 inkastoo PSG hayso hogaanka laakiin haddana Bayern Munich si isku dhiimayso PSG iyada ku dhadalma yaraysan karo waxa haystaan Neymar iyo Mbappe Neymar wuxuu maalintii loo dhiibay assist aad u cajiiba oo aan runtii u arko inuu ka qurux badnaa assistigii Toni Kroos ee aad ka loo buunbuuniyay marka waxa isugu soo bixi doona san filayo horena u filay PSG Chelsea Real Madrid iyagu waxaad moodaa inay baxsan yihiin City waxaad moodaa inay baxsan tahay kulanka PSG iyo Bayern 50-50 لكن أنا روح مشان شيرينيا إنه لك PSG maadaama oo Robert Lewandowski uu maqan yahay marka isku soo duuduubo waxaan filayaa PSG iyo Man City oo dhinaca iyo Chelsea Real Madrid oo dhinaca inay isugu soo hadhi doonaan afarta kooxood intaasi waxaa noogu soo dhamaaday barnaamijkeenii codka taageerayaasha oo aad si toddobaad looga daawataan channelka YouTube-ka ee Taageera TV barnaamijka waxaa martay waa Cabdishaafi Cabdibaasid Muxiidiin tan iyo intaanu ku kulmi doono kulan kan lamida waxaan leenahay taageerayaashayda Ramadaan Kariim wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh